سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله تعالى ساكا وصبح جمعة تاريخ دنا أي تاي ستيديا لباتنك بشي صدحات كن أفر بقول يتضبيه صدًا وحا aynu insha allahu tacaala soo gudbin doonaa kelimaad kooban oo iska fudud oo musaafir si caabira uu u jeedinayo rixlo dacawiya ama safar dacwadeed oo aanu gallayna aanu ka soo dhex qaadnay intan si aanu ula mushaarakayno walaalaha yaga muslimiinta ah khayrka iyo wanaagga. insha allahu tacaala waxaa khudbadahani ama duruustan ama darsigani uu ku saabsanaan doonaa kelmad kooban oo ka hadlaysa sida aynu u wanaajin lahayn ama aynu u horumarin lahayn reeraheenna iyo qoysaskeena. waxaa shaki la-aan oo qof kastoo muslimiba maanta indhaha ku hayaa xaalka iyo sida ay yihiin qoysaskii muslimka ahaa iyadoo dhibaatooyin fara badani ay yihiin kuwo soo wajahaya min adaakhil aw min alkhaarij ama gudaha ha ka soo wajahaan ama dibaddaba ha ka soo wajahaan mushkilado fara badanna ay haystaan oo maalan ay ka mid tahay markaynu soo duuduubno balwadaha noocyadeeda kala duwan mushkilat alidmaan qaad iyo sigaar iyo wixii raaca tiifiya la daawado iyo musalsalla iyo ciyaara iyo iyaga laftoodu mararka qaar bay idmaanka iyo balwadda soo galaan oo ay noqon karaanba kuwo aan ka gaabsanaynin ama aan ka yaraysanaynin balwadaha la yaqaano ee qaad iyo sigaar iyo wixii la nooca. iyo hadday tahay isfahan la-aan la isfahmi leeyahay oo nolosha markay wiilka iyo gabadhu isu soo baranayaanna si yaroo yacni fudud ay isu soo gelayaan marka dambena in badan dacaray kala leefayaan oo noloshii culays ay ku noqonayso ay gacmaha ku sidi kari waayayaan. haddaba irshaadaad nabawiya calayhi salaatu wasalaam tilmaamihii rasuulka qoyskii nebigu siduu ahaa sala allahu calayhi wasalam iyo qofka la dooranayo siyaabaha loo doorto iyo qoyska waxa wanaajiya khilaaf hadduu yimaado sida looga baxo waxaa insha allahu tacaala mushaarakayn doona aniga iyo walaalkay iyo sheekha dictoorka ah sheekh xuseen xasan cali xuseen faraa'id labadeedaasa insha allahu tacaala mushaarakayn doona. qodobka koowaadna waxaanu ku soo qaadan doonaa inta aan guriga la dhisin ama wanaajinta gurigu waxay ka timaadaa laba sees bay ka timaadaa in uu qofku xusho halka guriga uu ka dhisanayo oo waata la yidhahda aljaaru qabla daar daar intaana dhisin horta jaarka la iska hubsadaayo dadka la weydiiyaa xaggaad degayso inay meel san tahay iyo inay meel khariban tahay la kala hubsadaa. qodobka labaadna wuxuu noqonayaa qofka aad shariikulxayaa wiil iyo gabadh wuxuu yahayba nin iyo gabadh waxay tahayba qofka aad nolosha la wadaagaysaa waa qof nooc maa inaha marka hore marka la isla hagaajiyaa waxaa iman karta dabadeeto in la dabaqo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam in la soo saaro qoys wanaagsan oo qurux iyo nabadgelyo ku wada noolaada. walaalayaal waxaad ila dareensantihiin oo dhammaanteen ka wada markhaati kacaynaa badi qoysaska muslimku inay maanta burburaanba oo dalaaqu uu yahay muntashir meel kastoo caalamka ka mid a nisbada dalaaqa markaad akhrido aad la yaabaysaa ood soranaysaa reerba ma dhisna inta wada joogto laftoodu waxay ku wada joogaan jaafaa jiriq iyo kadeed iyo dana isku eegasha uun
in nolosha si xiisa leh u wada wado oo yacni qaabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo reerihiisu ahaayeen qaabka dee ilaahay rababa qoysaskeenu inay noqdaan ee diin inagu irshaadinayso qoysas inta badan sidaa u socdaa waa iska kooban yihiin marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaynu u dhaganuglaano oo aynu qabatoonno nusuustan sharcigaynu maqlaynaa inay wacdi iyo xadiis inoo noqoto ma oo marka la jeediyo ee maalan nin sheekha ama daaciye ahi wuxuu inoo tilmaamo inaynu idhaahno wallahi waa tabak fiican buu ka hadlay qodob wanaagsan buu taabtay qaabkaasun in loo hadlo ma waxa loo baahan yahay qofku noloshiisii inuu duldhigo xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wixii ka qaldan nin iyo yacni gabadh hadday tahayba la isa saxo oo qofku uu qabatoomo oo uu istoosiyo taa waxaa ka dhalanaya in sha allahu tacaala usratun saciida wa xayaatun saciida macnaheeda haddii nolosha adduunyadu qofka u hagaagtay iyo reerkiisu calaaqo weyn waxay la leedahay noloshiisa aakhiro hagaagtay macnuhu nolosha adduunye hadday qofka ka xumaatana nolosha aakhira xumaanaysa sidaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu isugu xidhay oo beytka ilaahay jala yacni miduu inoogu mana sheegto wallahu jacala lakum min buyuutikum sakanan ilaahay guryihiina wuxuu idinka dhigay meel aad ku raaxaysataan ood ku degtaan baa ilahay yidhi subxana wa tacaala dee sakankii haddii laga saaro isdaba wareeg iyo kabna lul kabna laalaadii baa ka imanaysa iyo xagga dambe oo markaa dulmi badan iyo dhibaatooyin uu rarto oo ilaahay uu la hortaga qiyaamada isagoon culayskeediiba qaadi karin waxaa kaloo qur'aanka ku sugan in ilaahay jala jalaaluhu uu ugu manno sheegtay ama uu kaga warramay nimankii reer banu nadiira yuhuudda ahaa markii guryahoodii laga dareeriyey dhegta dhiigga loo daree la garaacay huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min diyaarihim liawali alxashr ilaahay tabaaraka watacaala waa kaa guryahoodii ka dareeriyey bannaanka u saaray guryaha haddaba aynu fadhinno aynu ku dhex jiraa waa nicmadaa weyn usrada iyo qoyska muslimka waa nicmadaa ilaahay qofka siiyey sidaynu u ilaalin karaa sidaynu u qurxin karaa liica ku imanaya qoyska sidee loo xakamayn karaa iclaamka ama fikirada kale waafidka ah ee ina soo booqanaya walaalkay sheekh xuseen xasan cali falyatafadal mashkuuran wama'juuran wixii ku saabsan qodobada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaa tusiyo alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaa wabacdu walaalayaal salaamu ullaahi calaykum waraxmatuh wabarakaatuh aada iyo aad ayaan ilaahay mahaddiisa kadib waxaan mahad ugu celinayaa walaalaha runtii halkan ila jooga uu ka yacni hormoodka ka yahay walaal sheekh xamse xabeeb iyo walaalaha runtii isku hawlay ku dadaalay inay wakhtigan ka faa'iideeyaan si dadka ahlul islaamka ah iyo qoysaska dad muslimiinta ah loo anfaco ama laysugu dayo in laga rido oo la iftiimiyo dhaqankii islaamku uu lahaa ee wanaagsanaa ee islaamku ku baaqay ee qoysaska in lagu dhaqo ilaah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ay ku baaqeen ina amreen ina bareen maadaama oo maanta qoysaskii muslimka ahaa iyo cumuuman ummadda muslimka ah dhaqamo aanay lahayn ay ku soo duuleen oo buyuuddii fasaad badan ay ku hayso musalsalaadka iyo filimaanta la daawanayo ee waxa weeyaan aadka uga fog dhaqankii islaamka wixii ku saabsan qoysaska qoys haddii la dhisayo waxaa lagama maarmaana maadaama uu qoysku yahay hoyga labada qof ay waxa weeyaan u hoyanayaan maadaama oo uu guurku yahay baahi bani aadam oo ilaahay jala wacalaa uu ku abuuray dadka maadaama oo aanu qofna ka maarmayn ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo inuu guursado oo baahidaasi ay tahay baahi bashariya waxaa sharcigu ilaahay caza wajal uu faray loona jideeyey qaab
wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaanayo oo loo guto. qaabkaasi waxa uu yahay dee in dariiqii sharciga ah la maro oo guur ah. guurkaasi waxaa sharcigu uu faray in buddhig looga dhigo, sal iyo asaas looga dhigo, oo lagu qotomiyo diin. qofka doonaya inuu sacaado ka gaadho guurkiisa waa inuu ku dadaalo inuu guurkiisa ka dhigo miduu ilaahay ugu dhowaado. walihaada baa nabigeena calayh isalaatu wassalaam waxaa ka sugan inuu yidhi tunkaxu lmar'atu liarbacin: limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha fadfar bidaati iddiin. nabigeenna waxaa ka sugan calayhi salaatu wassalaam inuu yidhi gabadh waxaa lagu xushaa oo nin gabadh uu ku xushaa uu guur ka rabo 4 midkood. dumarkuna waa la midoo dee 4taa midkood uun bay ninku raacdaa. waa laga yaabaa 4ta in dadka qaarkood 2 ka mida ilaahay u jamciyo. nebigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi gabadh waxaa loo guursadaa xoolaheeda iyo hanti ay haysato, iyo iyadoo ninku isleeyahay dabkii baxayaa dab lagu qabsadaaye. bal hadda gabadhan guur u gal, kuna talagal waxa weeyaan adduunyana iyo khayr dhaqaale inaad ka heshana isku day. waa mid badnaan inuu qofku ragga ahi gabadh u guursado xoolo ay haysatay darteed. waxaa kaloo bannaan inuu u guursado raas wanaagsan oo rug ah oo rays ah oo dad waxa weeyaan dhaxalgalo ah, family sharaf iyo xishmad iyo mujtamaca dhexdiisa kule maqaam iyo maamuus inay ka soo jeedo darteed inuu guursado isagoo awlaaddiisa u meel dayaya. waxaa kaluu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam in gabadh loo guursado dhamankeeda iyo dhegteeda iyo quruxdeeda. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waxaa kaloo loo guursadaa in gabadh loo guursado quruxdeeduna waa tay rag ku dabar go-eenoo ay u badan yihiin. nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waxaa kaloo gabadh loo guursadaa lidiiniha, diinteeda loo guursadaa. nebigu wuxu uhi fadfar bidaati diini, waxaad ku dadaashaa ta diinta leh. taribat yadaaka, gacantaadu boorhowdaye yaa ma garata balaayo kuma haleeshe waxaad ku dadaashaa yaa taribat yadaaka habaar maaha, waa guubaabo. nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam ta diinta leh ku dadaal. haddii aan kelmad yar isdul taaga halkaas, rasuulku raggii wuxuu faray inuu gabadh raadsado, gabadha uu raadsanayo uu diinteeda ku dadaalo oo uu diinteeda ka fudh yeelo oo uu diinta wax walba ka hormariyo. khuluqa wanaagsan iyo diinta iyo dhaqanka islaamka ay ku dhaqmayso iyo qof diin leh inay tahay oo aan lagu aqoon macsiyo iyo waxa weeyaan maaragtay dibadbax, aan lagu aqoon qaawani iyo akhlaaqdii islaamkay ka tagto. sababtaa uu nebigu taa ugu guubaabiyey dadka muslimiinta waxa weeye diintu waa raasamaal aan suulin. gabadhu hadday diin leedahay sida aynu tilmaami doonno, salaaxeedu waxa uu gaadhayaa oo ka faa'iidaya ninkeeda, waxa ka faa'iidaya awlaaddeeda, waxa ka faa'iidaya qaraabadeeda, waxa ka faa'iidaya raaska iyo rugta ay u dhaxday iyo ciddii ay qaraabo la-ah ama ninkeeda xaggeeda ha ka soo ninka xaggiisa ha ka soo jeedo ama ha ka soo jeedo iyada xaggeeda. marka waa nafcigeedu waa nafcun cadiim gabadha diinta leh.
sidaa awgeed baa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa. adduunyadu buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhaldhalaal, waa raaxo kooban oo yatamatacu biha almar'u fatratan min azamani muxadada, fatro zamanka ka mida oo kooban, waa wax lagu waxa weeyaan raaxaysto. waxaana dhammaanteed adduunyo isku soo duuduubo ugu fiican buu nebigu calayhi salaatu wasalaam mataaceeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo waxa weeyaan raaxadeeda waxaa ugu fiican inuu ilaahay kaa siiyo gabadh wanaagsan oo tuciinuka calaa diinik, diintaada iyo daacada ilaahay iyo rabbi raalli ahaanshiisa kugu gargaarta. saynu tilmaami doona walaalayaal, xooluu way suulaan haddii rifti faali dhacdo, dee shilimaadka aad gabadha ku gashay marka la waayo ay meesha ka baxdo, haddii maqsadkaagu iyo ujeeddadaadu ahaa ku dab qabso oo waxoogaa ma garanaysa way kaa fadhida ay ku badhitaaro, hadday sidaa ahayd maqsadkaasi waxa uu meesha ka baxayaa dee markay xoolihii meesha ka baxaan, dabadeedna wuxuu noqonayaa qofkii mid wixii dee aad ku dooratay markaad ka weyday dee maaragtay xaaladdiisa humaagalo iyo madmadow. haddii gabadha aad ku dooratay dee reer wanaagsan oo ay ka dhalatay iyo raas fiican oo ay ka soo jeedana iyo qabiil wanaagsan oo ay ka dhalatayna, dee haddii ay iyadu kugu xumaato dee qabiilku gabadh ku noqon maayo. dadkuna bal waxaa laga yaabaa inay darar kugu noqoto, lagula niyow reer wanaagsan iyo family fiican baad ka qabtaaye markaad cabato balaayadan ku eriyeysaa horta maxay tahay? ha war niyahow isla yaabo marka uu ninkii noqdo nin dee raran dusha ka saaran, xaaladiisuna ay xaalad tahay. dumarkana waxaa ka mid ah ilaahay dhammaanteen hayna toosiyo gabadh dadka kale u wanaagsan oo waxa weeyaan ummadda dee ku deeqday dhaqankeeda, dabeecad wanaageeda, afmacaanideeda maalin allaala, laakiin ninkeeda guriga markay kula gaar noqoto dee waxa weeyaan sutida u qabanayso oo dadka ka ugu daran ah. in badanna way dhacdaayo dadku inaan hadhowta ka garaabin, raggana qaar noocaasa jira. waxaa yimi qofkii ku raacay gabadha dhabankeeda iyo quruxdeeda, dee taasina way suulaysaayo calal aqali haddii aanay wada suulinna waa isdhimaysaayo dee quruxdii ay lahayd iyo dhabankii ay lahayd iyo dhegtii ay lahayd iyo inantii shalay jamjamta ahayd ee magaaladuba daba yaacaysay, marka ay caruurteedii iyo tafiirteedii rag iyo dumarba ay qaybsadaan quruxdii ay lahayd ee ay 4 dhal iyo 5 dhal iyo 10 dhal bad noqoto, dee tii aad taqaaniin noqon mayso. laakiin diintu waa raasamaan. saa awgeed baa nebigu wuxu uhi fadfar bidaati diini taribat yadaaka. walaalayaal, kadaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi dumarkii ama markii uu la hadlayay nebigu dadkii ka mas-uulkaha dumarka ee awliyaa umuurka ahaa, nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu. haddii waxa weeyaan uu idin yimaado qof nin raga oo guur raba oo waxa weeyaan dhaqankiisa iyo diintiisa aanay saluugin oo yani waxa weeyaan labadaa ku fiican, fazawijuuhu buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u guuriya. marka miisaanka raggii la saarayaa iyo miisaanka qofka gabadha uu nolosha la wadaagayo uu saarayaa waa inuu kow ka noqdaa asal iyo asaas iyo buddhig u noqdaa diin wanaag iyo akhlaaq fiican. qof walibana waxa uu jecel yahay inuu sacaado iyo badhaadhe uu ku helo gurigiisa. walaalayaal, zawjada saalixa inay nimco tahay iyo gabadha diinta leh, hal mithaal haddii aan ka tilmaamo, nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa dhacday markii uu rasuulku sala allahu alay wasalam risaalada loo soo dhiibay. haddii aad dib u raacdo ama u milicsato taarikh nololeedkiisii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, waxaad arkaysaa inay ka gashay boos weyn,
ka qaadatay xad laxaad leh ay ka qaadatay zawjadiisii khadiija bintu khuwaylid radia allahu tacala canha lmu'miniin way nebiga isla garab taagtay nafteedii iyo maalkeedii hantideedii talo iyo waxa weeyaan sabirsiin rasuulka salى اllahu عalيه wasalam walihaada baana nebigu calayh الsalaatu wasalaam marnaba aanu khadiijo iloobin nebigu alayh الsalaatu wasalaam waxay tiri caaishii ma kirtu calى axadi min nisaai الnabiy sal اla alay slm ma kirtu min khadiija kamaan hinaasin intaan ka hinaasay khadiija qof dumarkii kamida nebiga ka mida sal اllah alay slam kama hinaasay anigoo aan soo gaarin ayaan ka hinaasay khadiija ayay tiri radia allahu tacala canha oo ay 3 sano ka hor intaanu nebigu guursanin dhimatay wamaca daalika nebigu siduu u sheegayey ee uu dikrigeeda iyo xuskeeda uu u badiyey darteed ee aan uga maqlay ayaan uga hinaasabay radia allahu tacala canha waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa uu iloobi waayey markii ilaahay soo diray ee dadkii u ka dhashay colaadiyeen ee nebiga calayhi salaatu wasalaam rumiya min qowsin waaxid qows keliya ama dhinac keliya laga wada maray ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam garabka u noqotay ee qalbiga u adkaysay ee waxa weeyaan nusrada isla ag taagtay ee waxa weeyaan ilaahay dabadii ilaahay caza wajalla uu uga dhigay asxaabta waxaa ugu horreysay khadiija radia allahu tacaala canha waanaynu garanaynaa inay nebiga calayh isalaatu wasalaam marka laga reebo hantideeday u hurtay sidii ay nebiga calayh isalaatu wasalaam u dejinaysay markuu u yimaado guriga u yimaado markaa gabadha diintali waa nicmo gabadha diintali waa nicmo in qofka muslimka uu ku dadaalo gabadha muslimadayna waa inay ku dadaasho inay nin diin leh oo akhlaaq wanaagsan leh ay raadsato si aad taasi waxaad ku damaanad qaadaysaa in awlaadaada aad u samayso asal iyo hoy iyo hanti lama guuraan ah oo waxa weyaan aakhiriya adduunba ay ku liibaanaan jazaaka allahu khayran khayr aljazaa sheekh waad mahadsan tahay intaa kadib dee kolley dadkaa la sheegaya diintali waa qof muslim ahoo diintiisaana ku dhaqmaya dadkuna waxay u kala fadli badan yihiin sida diinta ay ugu sii kala xeel dheer yihiin ilaahay tabaaraka watacaala haynagu sugo inaynu ku dhaqanno dhammaanteen waxyiga samaawiga ah iyo nuurka rabbi tabaaraka watacaala inoo soo dejiyey سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حرر النفس ولا تحيا هبا يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي للتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي للتحدي لا سواه للتحدي لا سواه ذلك